الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دمان صلاة دينتا قدومياشا حسبية كلمية ودني سياسيين تا حلبان دا وحقرتك دمان مدشن مهركا اسويم وحنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وورين وحنا لكن كهمبليو يبقادين وجتشيدين يا عبد الجبار يا نعيمة ومانتا أينو هالكن قيس كودي كيغلالي إلهي وحنا قبر يا إنو كديجو لما نهي سكراجا قريجي بشمشية برواقو يبراره كوارا دعوة يجينتا دردارنا وحوي يا عبد الجبار وأنا أبيه محمد إسماعيل صاحب وين أهين وحن لا يهي حلوي باكو فوري حلكا قويسكا أديكا ومدحا نعيمنا وقندك إسكاشي يكالقعل يون حريس يدلقات بالذين كبهية انتاس ودعوية دردارة مدى قيمة لبين تشوقنا حفلة أنا وحا ليقع السومي دينا عبد الجبار أبينا صاحبان وهين السومدنا حقا سيقتم مركي المدشة سوق علي أيام وحرر كي لبدي قدومي حسبي مجاهد محمد كاهنيو حلس علي حاتي حسن oo dhinacii aan aniguna fadhiisan lahaa fadhiya dabadeedna waan fakaro waxaan idhi war aamiinta gaarsiiyo kafadiya bardaanka siinoo xaggaasaan fadhiistay halkii aan fadhiistay kuma qaloon mar rag gobonimada ku caana weeye marna geela isugu kaaya jiray guyaal badan marka kuma qaloon erayga aaminta ayaa gaarsiinaya waxal ku dhigacaana waxa bixiyay caaqilkii Cabdi Jabbaar ilaahay ha u naxariisto uu dhintay nin loo oran jiray Nuuraf Weyne oo xakiim ahaa oo hal ku dhigyo badan lahaa ninka lahaa burco ha isbarato ama hoose isaga dawasha ayaa hal ku dhigaa bixiyay dagaalkii sokeeye ee reer togdheer dhex maray 54 iyo 56 ayaa cuqaashii la xidhay buu ku jiray sacaadadiin buu ingiriisku geeyay galab maqriba ayaa labadii odayaale kala xidhna qolada meel ku tukatay dabadeedna qoladii abtiyaashay baa aamin weynaatay ama ha noqday inta tukanoo soo ka batay ama dee abtiyaashay waa niman cod weyne marka aamin bay xoog yiraahdeen qoladii uu isagu ka soo jeedo aanu markaa tukanayno uu weyse iyo wax sugayo oo wali aanu safka gelin buu arko aamintoodii gaaban tahay ragcadii dambu aad ula jibiyay isagoo aan salaada ku jirin aamin warnuurow maxaa dhacay baa loo xidhay aaminta gaarsiinay yaa dee noloshu waa halgani marka waxaan leeyahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay madashana inuu isugu nimi waa madal qiimo badan Cabdi Jabbaar halkan saddex kooxood baan nahay laba saf iyo saf saddexaad oo fanaaniintii iyo abwaanadii iyo halabuurayaashii ayaa iyaguna saddexaad oo inoo weheliya واحد وين وكترسن كوحدة ديحبان وديقا وياهي داها عبد القاس آدي آدبان كوحدة وبقادين إياه سيدا سياسة سيحوغ إنو قيب سنة برقيدة ويو دور شوينكا عيبنا معها ويو واركتي قناع ستدي با قيب سنتي مدح لقادميت كي با قيب سمي سياسيين تي با قيب سمي فنانين تيابوا مدينة واقعي بسبين ديحبان يوديقولوا قاريقا صدح قارينو كلا راعني او صدح ودا كلا هيا قاريقا كلمية يسار رايين يوم قاريقا كلمية
ayay saaraayeenoo siyaasadana waxaa ku ceeba laba gaadhi inaad gaadhi raacdo ceeb kuma ahe waa raganimo gaadhigaad raacdayna waa lagu qalajistaa marka aad iyo aad bay u barweyn jireen oo taana maanu dhibsan jirine waanu ku bogaadinaynaayo waxa weeye waa kuwii heesahooda waxa ka mid ahaa dadku waxaad dhuraysaan markay annaga nala hadlayaan dadku waxaad dhuraysaan dhega uma hayaane dhici maayo muuse hadal yaanu kaa dhicin baa heesahoodii ka mid ahaa waxaan leeyahay maanta haddaba saddexdii gaadhi ma kala saarin maanta hal gaadhi baynu saarannay gaadhigii dheereeye baynu wada raacnay hal gaadhi baa qarankani saaran iyo waddo qurana waynu haynaa marka doorashooyinku yimaadaan gawaadhida waa la kala raacayaa annagu waxaanu leenahay war gaadhigaa quraynu wada saaraanaynaa gaadhigeennana aan aamino waxa weeye qoladayada mucaaradka waxaanu ogol lahay oo dadka ku gubaabinaynaa in gaadhigaa la saaraado gaadhigaa cabdiraxmaan cirra uu dareewalka ka yahay madaxweynuhu xilsina xisbiga uu guddoomiyaha ka yahay waxsaanu leenahay wuxuu markhaatigaygii indhaha siduu soo leeyahay war gaadhigaas waxaa laga doonayaa gaadhi dadka wada qaado inuu noqdo waxaa laga doonayaa gaadhi aan buubaa lahayn oo layli ahayn ayaa laga doonayaa inuu noqdo waxaan leeyahay dhammaanteen maanta waxayna la gudboon midnimo iyo wadajir qarankeenna inaynu difaacno inaynu cadowga meel uga soo wada jeedno inaynu nabadgelyadeenna iyo dowladnimadeenna ilaashanno shacbiga jamhuuriyadda somalilan ee degan waddanka kenya waxaanu ku bogaadinaynaa sidii ay u midoobeen maanta qarannimada iyo soo dhoweynta madaxweynaha iyo hiilka qarannimada waanu ku bogaadinaynaa aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiinba asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu